الرحمن الرحيم كسو دوادا tutorial كاني كفايدة aqoon cashirkeeni taxanaha ayaan wadnay ee Excel ka aan ku baranayay introduction of Excel 2013 kiisa bilowgiisa iyo introduction kiisa aan ku baranayay cashiradeeni way taxanaha baan wadnay marka waxaan baranaynaa waxaan soo baranay isku geyntii iyo kala jaridii iyo isku dhufashadii baan soo baranay saddexda markaan soo baran maanta waxaan baranaynaa maximum iyo minimum iyo average marka soo dhaweeyo sidaad u aragtid soo dhaweeyo sidaad u aragtid minimum iyo maximum iyo average weeyaan iyo waxaan kala baranaynaa division oo ah iyadna kala jar isku qaybintii ayaan baranaynaa saddexdaas aan baranaynaa table-kan imika waxaan saa ugu sameeyay waxaan doonaynaa inaan marka horeyso saas aad u qoranaysaa qoraal ahaan baad ku qoranaysaa imika barray store baan sameynaynay qaybta koowaad waxaad kaga qoranaysaa barray store column-ka koowaad baad ku qoraysaa labaad waxaad ku qoranaysaa alaabta bakhaarka oo in alaabta aan kasoo qaadnay inaan alaab hayno alaabta ayaan kasoo qaadnay kabacdina waxaad kasoo qaadaysaa inay intaasoo dada aad ku leedahay ama aad alaab ku leedahay intaasoo dada inaad alaab ku leedahay kasoo qaad kabacdina waxaad sameynaysaa halkaas markasta sameysid halkaa waxaan ku qoraynaa alaabta bakhaarka ama waxda kaga maqan inuu mid walba intaas kaga maqan mid walba intaasoo deyna ama amaaha amba dhibco marka halkan waan beddelaya hadhow saan doonay waqtigan yareynaysa inuu si bixiyo foontada form wanaagsan oo qurux badan waxaad uga dhiganaysaa marka ugu horeysa marka saa u sameysid leadka hore aad gelinaysaa koodiisa sidoo gelinaysaa marka hore sharaxaad ma bixinaysaa iska bixinaysaa markaad wada bixisid column walba meesha aad doonaysid aad gashatid ayaad kadibna bilaabaysaa inaad qoraysid marka ugu horeysa ciwaanka kaga bilaabay ciwaanka marka saa u kala garaysid waxaad oranaysaa ciwaanka saa u qabatid raayga saa u jeedaysaa waa dharaay garanaysaa muuskaadi waa haya kabacdina waxaad tegaysaa home baad tegaysaa markaad home tegaysid march kaasaad ku dhufanaysaa march markaad ku dhufatid sidaad casharka ula fahansid markaad march ku dhufatid waxaad ku dhufanaysaa kale boldigaasaad ku dhufanaysaa boldiga markaad ku dhufatidna wuxuu kuu sameynayaa uu ku boldi garaynayaa markaad saa soo noqotid banaankaasaad kala garanaysaa markaad doonaysid inaad ka noqotid marka barre store halkaasuu noqotay markaan doonayna inaan weynino barrana waxaad tegaysaa home baad tegaysaa kabacdina calaamada increase-ka size font size-kaasaad kala garanaysaa uuna saas u kugu increase garaynayaa barre store ku noqday barre store saas u kugu noqday kabacdina waa kasoo noqonaysaa qaybta labaad waxay noqonaysaa alaabta bakhaarkan ka dhignay imika waxaan qoraynaa amaahda uu leeyahay amaahda bakhaarka ayaan ka dhigaynaa si marka qoraalka qortid hadda doonaysa inaad edit garaysid laba jeer bas halkaan waad ka edit garayn kartaa oo inta ugu horeysa saa uga masaxaysaa kabacdina waxaad ku qoraysaa amaahda bakhaarka waad ku qoraysaa amaahda bakhaarkaaga marka saddexda leadka koowaad mad ku qortay saasna sidii lamid ah kaliya wada highlight garanaysaa u jiidaysaa aad mouse-ka right click jiidaya kabacdina waxaad qabanaysaa halkan tagay home baad qabanaysaa kabacdina march waa isku furaysaa intaas oo dhan baad isku furaysaa kabacdina bold baad siinaysaa kabacdina waad yareyn karaysanaysaa wuxuu noqonayaa amaahda bakhaarka oo saxdii ah date-ki sidii si leeg baad sameynaysaa date-ka markaad timaadid haddana saasaad imanaysaa saasaad u jiidaysaa marka saas saddexda u geysid ayaad qabanaysaa haddana home kabacdina waxaad qabanaysaa march waad isku furaysaa kabacdina bold baad ka dhiganaysaa size-kana waad yara ku dhiganaysaa ciwaan maadaama yahay ciwaanka mar walba size-ka waad yara ku dhisanaysaa 18 amba $12 baad ka dhiganaysaa kolba si aad u jeceshahay qaybta labaad aan doonaynaa inaan sameyno ardayda maaha waxaa ardaydana si markaad qoraalku marka hore aad doonaysid inaad edit garaysatid ama sidaad u edit garaysanaysid ayaan ku baranaynay saas laba jeer u kala garaysanaysaa markaad doonaysid inaad edit garaysid waa highlight garayn karaysaa kabacdi dhowr nooc oo loo edit gareeyo ku marka hore xaggaas aan ka edit garaynay imika waxaan ka edit garaynaynaa isaga on laba jeer kala garaynay kabacdina highlight garaynay ayaan ku qoraynaa macmiilka customer baan ku qoraynaa ama macmiilka ka dhig macmiilkan ku qoraynaa macmiilkaasaan leenahay macmiilka marka enter baad siinaysaa qaybtan labaadna saan u edit garaynayno saasaad qoraysaa laba jeer baad kala garaynaysaa markaas u boodbooday markaas u boodboodo ayaad highlight garaysanaysaa kabacdina ku qoraysaa amaahda koowaad ama bisha koowaad baad iska oran kartaa bisha koowaad inta lagu lahaa bisha koowaad waa ka dhig bisha koowaad intaas lagu lahaa tanna waxaad ka edit garayn kartaa halkaas raasta qoonaysaa bisha labaad intaas صحيح إيش أرقص bisha labaad ku qoraysaa kabacdina tan kalena saasaad u kala garan karaysaa anna waa wada highlight garan karaysaa inta laba jeer u kala garaysid ayaad waxaad qoraysaa bisha saddexaadna wixii lagu lahaa intaasan diinta lagu lahaa kabacdi marka saa aad u edit garaysatid editor-kii aan ku tusaysaa aad u edit garaysanaysid waxaad sameysanaysaa saasaad u wada highlight garanaysaa hal mar sidii uu kugu noqdo bold imika march ma qabanaysid waxaan qabanaynaa bold baa qabanaysaa iskuma furayno imika mid walba qaybtiisa sax inuu ahaato
marka home noqoto in yar ayaan ku daraynaa font size maadaama ciwaan yahay si dadku si fiican ugu arkaan in yar kordhinaynaa markaan kordhino waa si right click banaankaas aad click garanaysaa saamadooniga uga qatay iminka qayb baa inaga muuqata way wada qarsoomeen qaar fara badan baa inaga qarsoomay halkaas aad tegaysaa halkaas aad marka tagtid laba jeer baa saa u click garanaysaa isaga saa u boodaya amba waad jiidaysaa ama saas aad u jiidaysaa ilaa intaad arkay sida doonaysid ku qanacdid saas aad u jiidaysaa laakiin waxaa ugu fiican inaad laba jeer saa u click saas intaad u jiidi lahayd oo marka soo noqon haddana aad soo celin lahayd saas aad u jiidi kartaa markaasna saasna waad samayn kartaa horta stebyada fara badan bayna tusaya saas oo sameynaysaa haddii kalena saas markaad u click garaysid waxaad sameynaysaa halkaas sare aad tegaysaa markuu afar geesta saa u noqdo laba jeer saa u click garaysaa mouse-ka right click-ga kabacdi intii kale oo dhan kuwa sax bay noqonaysaa macmiilkaas isna maqan macmiilkana saas si loo arko haddii kale waraaqda hadhow tolo markaad daabacdid wuxuu kuu soo baxayaa inaan la arki karayn oo aan la arkin buu soo baxayaa marka waa inaad mid walba u samaysaa si fiican oo loo arki karayo aad u samaysaa marka sidaa u samaysid uu saa kugu sharaxnaado waxaad samaynaysaa kale aad wada highlight garaynaysaa si uu kugu line kugu samayso haddii kale hadhow tolo bilaa line buu ku noqonayaa kabacdina markaad berita garaysid weeyaan home baad tegaysaa kabacdi waxaad noqonaysaa markaasaad tegaysaa fontigaas aad soo furaysaa bottonka borderkaas soo furaysaa borderka kaa la yidhaahdo kabacdi waxaad ka dooranaysaa all borderskaas ka doonaysaa laymankii weynoo muuqanayaan laymanka saas kugu muuqanayaan laymankan markaad berita garaysid way muuqanayaan saas sax ku noqonaysaa baashi sida sax ku noqonaysaa marka saa aad u samaysatid waxaan doonaynaa inaan sameyno amaahda aan ogaano amaahda inoogu yar oo maximumkii amaahda inoogu badan ee aan bixinay iyo amaahda inoogu yar ee aan cabdi ku leenahay iyo ta ugu yar iyo celceliska xisaabahana waynu adeegsanaynaa markaas samaynayna marka waxaad ku dhufanaysaa halkaas aad saa kala garanaysaa mar walba xisaab samaynaysid waxaad qabanaysaa equal baad qabanaysaa kabacdi waxaad qoranaysaa saddexda xaraf ee ugu horeeya maxi oo maximum u taagan maxi markaad qabatid mouse-ka laba jeer baad kala garanaysaa laba si baad noqonaysaa tab baad qabanaysaa oo capitalka mouse-ka ka sareysa ayaad keyboardka ayaad qabanaysaa saa marka taab qabatid kuu furmaya kabacdina waa soo kala garanaysaa waxa ku furmaya bracket-kaas saddexdaba saas soo shaqaynaysaa enter baad siinaysaa marka inta saysid wuxuu kuu sheegayaa saddexdan amaha aan ku leenahay ee biloha ah bisha ugu badan ee amahda badan ku leenahay waa bisha 24 ku leenahay marka saa u sheegaysid waad arkaysaa ta ugu badan talabaad baad saa u kala garanaysaa kabacdina enter baad siinaysaa marka enter saa u saysid waxaad samaynaysaa sidiisi leeg baad samaynaysaa waxaad qoranaysaa mini baad qoranaysaa oo saddexda xaraf ee ugu horeeya ayaad ka qoranaysaa kabacdi laba markuu saa kugu soo bixiyo minida laba jeer ayaad kala garanaysaa mouse-kaaga kabacdina waxaad soo kala garanaysaa saa soo dharaa garanaysaa markuu formulada marka enter baad siinaysaa marka saa kugu gaadhiso iyadana maxaa ugu yar 13 baa ugu yar 13 kilogram bishii koowaad baa ugu yaraatay kabacdi average tan waxa weeyaan average waa celceliska markaan celceliska isaga raadinayno waxaan sameynaynaa equal isna oo sidii slang baan sameynaynaa af baan qoraynaa marka ugu horeysa average baan qoraynaa marka average af markaad qortid uu soo dhigay halkaas waxaa soo dhigay average kaas aad ka dooranaysaa oo caadi ahaan buu qoray marka waad qoraysaa waayo maadaama qaar kale average iyo average kala jira iyo average if lacala hadii celcelisku inta noqday waxa formulooyin kale fara badan ba noqday marka waxaad qoraysaa kale average oo kaliya ku qorso dhameystiran average kaas marka saa af qortid uu soo bixinaya kadib ka dooranaysaa average laba jeer baa soo kala garanaysaa marka saa kugu soo baxo waxaad highlight dalka ka soo bilaabaysaa saddexda waa soo highlight garanaysaa kabacdi enter baa siinaysaa Excelka inta looga faa'iideystaa qayb waxaad ka shaqeynaysaa halka formula marka ay wada isticmaalaysid waxaad ka shaqeynaysaa qaybta hore intan kale waxa automatically isaga u bixinaya si laba jeer laba haba loo bixiyo mar saasaad qabanaysaa waxaad soo dhara garanaysaa sidaas aad soo shiidaysaa markuu afar geesta saa noqdo koornaha yar saa u saartid soo dhaweeyo suga marka koornaha yar baa saa u saaraysaa marka soo dhaweyno koornaha saa u saartid inta imika markuu saa afar geesta yar noqdo uu midowado afar geesta yar madow noqdo ayaad right click mouse ka qabanaysaa kabacdina waad soo jiidaysaa intii kale isaga kaaga shaqeynaya automatically kaaga shaqeynaya mid walba TC saxda ah ku tusaysaa tan ee column-kan yaa ugu badan 12 kaas ugu badan kan yaa ugu badan 12 kaas ugu badan kan yaa ugu badan 13 ka ugu badan ku soo qoray kan yaa ugu badan 16 ka ugu badan ku qoray haddii kalena hal mar baad wada highlight garanaysaa inta saa highlight garaysid ayaad xagga marka dambe tagaysaa marka halka dambe tagtid ee aad wada highlight garaysid ayaad sidii si leeg soo dhara garanaysaa markuu afar geesta ku noqdo ee midowga horeysin ku noqdo ayaad soo jiidaysaa بعد مركز أنت اللي أنت تونسي قاعد هيد كقاعدة سامسك كبعد ميد والبا ساسوق سمينيا فرج كيسينا ساسوق سمينيا فرج كيسينو وعويان أنت نولي سكسو جاي فرج كيسينو حكي ميد كم كفرج كيسينو هاي صد 11 كل سكسو جاي
saddexda marka la isku soo geeyo waxay noqonaysaa konton iyo toddoba noqonaysaa wada kaasuu kugu qoraya excelku konton iyo saddex ma kugu qoray waa saddex qaybood weeyaan oo waa kow laba saddex bilood weeyaan saddexdii bilood baa loo qaybinayaa 3ga waxay noqonaysaa 19 kana percentage waxay noqonaysaa marka intan la isku soo geeyo waxay noqonaysaa 25 saddex marka loo qaybiyo 25 ma qaybsanaysa saddex marka waa 8 iyo 3 senti saas ku noqonaysaa qaybtaas maximumka iyo minimumka sida loogu xisaabinayay halkaasan ka gudbaynaa markaas doonaysid marka saas uu inoogu diyaar garoobay markaan ka noqonayo aan yareeyo saas uu noqonaysaa aan management-kiina ka bacdi table-kiini saas uu baray haddii aad doonaysid inaad baratigresid ogaatid table-gaagaas markuu baratigresid siduu noqonayo waxaad tegaysaa printing preview-gaas ku dhufanaysaa marka printing preview ku dhufto sidaas uu noqonaya barxa restore ama hadda bakhaarka saas uu kugu baratigareynaya qaabka warqadda uu gelaya sidaas uu noqonaya ma qaybta kale haddaan doono la subscribe garee ka faa'iido aqoon adiga oo taabanaya halka cas bartaayra cas baad saa u click gareynaysaa marka saa u click gareysid si aad ula socotid wax kasta aan soo gelino isku qaybinta aan doonayno inaan isku qaybinta markaan sameeyno si kale aan sameyn karnaa iyadana sidii sameynaa dhibic waxaan sameynaa dhibicda 1 iyo dhibicda 2 baan isku qaybinaa imika ardayda dhibicooga halkaan haddii aan ka baabino ama hada aan ku qorno dhibic dhibcaha ku qorna halkaana imika waxaan doonaynaa isku qaybintii markaan doonayno inaan isku qaybino marka isku qaybino si degdeg ah aynu doonayno sameeyno saasaan u oranaysaa ka bacdina waa soo jaraysaa degdeg baan imika tan uga gaarsiinaynaa tanna waad ka gaarsiinaysaa sidii si leeg ayaad sameynaysaa ka bacdina march baad sameynaysaa waa march garanaysaa haddii aan soo yar dhaweeyo saasuu noqonayaa tanna saasuu noqonaysaa marka saasaad waxay leed garanaysaa tusaale labaad han baan doonayna inuu noqdo oo si aad u fahantaan saasaad soo qaadanaysaa kabacdi home baad tegaysaa march baad qabanaysaa kabacdina marka saa u dhamaysatid waxaad ku noqonaysaa halkaagii hore intana gebigooga hal mar baad highlight garaysanaysaa imika waan dhaqsanaynaa si aan dhaqso marka degdeg u hagaajinaysid saa inta mar hal highlight garaysid ayaad noqonaysaa kaaga soo noqo weliba kaa sare malum baana kaas imika labadaas wuxuu inaga raacay kaa saddexaad buu inaga raacay divisionka columnka ida uma baahnin inaan march garayno kabacdi sideed uga noqon karta markuu sidaas oo kale noqdo cilad baa dhici karta inuu saas wala ka noqdo haddii kale columnka saddexaad kabacdi march home baa noqonaya march baa ku noqonaya marka click aan saaro in meeshii dulgeeyo wax noqonaya march baa ku noqonaya uu ka baabinaya march kabacdi highlight baan ka binayaa intaan doonaya ayaan highlight garaynayaa iidaas ma ku joogta iidaasan marka hore inoogu jirtay iida waan ka deynayaa kabacdina waxaan ku dib baan u noqonayaa march baan oranayaa halka kalena sidiisi leeg ayaan odhanayaa iida ka daa iidaasi ku jirta imika uu ka dheeriyey columnkaasaa maqan kabacdina no march baan ku oranaya marka marchiga ka qaadaysidna saasaa looga qaadaa kabacdina dib baad ugu celinaysaa marka home tiraahday haddana waxaad ku ranaysaa dembigu jar kabacdi saasuu noqonaya marka saddexdoodii ayaan sameynaa waxaan sameynaa saddexdaas afartoodaas saas sameynaya kadibna boldi waan sameynaya hal mar si ay igu wada boldi garooto hal mar baa boldi ka dhigaya markaas ka qaadaya kadibna marka hal mar boldi noqdo sidaas uu noqonaya imika waxaan doonaynaa inaan sameyno waxaan sameynayaa kale column-kii inaan u sameeyo oon saa u samaysto saddexda marka tiraahday waxaad tegaysaa home baad tegaysaa liidadkii baad u sameynaysaa marka uu kuu select garaysanayo all border buu kusoo qoray marka all border saas kusii kala degaraysaa haddii kalena home baad tegaysaa all border faladheer baad soo furaysaa all border baad ka dooranaysaa haddii kalena home-ku inoo sii select garaysana saas madow kala garanaysaa wuxuu manayaa delete madow ayuu inoo sameynayaa delete garaysinka inoo sameynaya bakhaarkeena sidaa imika waxaan sameynaynaa definition-kii baan sameynaynaa qaybitaankii ama isku qaybintii baan ka sameynaynaa isku qaybinta waxaa loo sameynayaa slash ayaad isticmaalaysaa adoo isticmaalaya mar walba equal baad isticmaalaysaa equal marka isticmaalaysid taa doonaysid qaybinaysid waad kala garanaysaa kabacdina waxaad qabanaysaa slashta aad qabanaysaa shiftiga u dhow ayaad qabanaysaa kabacdina inta kale doonaysid inaad qaybisid aad ku dhufanaysaa kabacdina waxaad siinaysaa enter marka laba loo qaybiyo 13 waa 6.5 saas noqonaya kabacdi sidii caadadna ahayd hal mar hadda doontid waxaad sidaas caadadna ahayd waad kala garanaysaa haddii kale laba saddex jeer baad kala garanaysaa waxaad sameynaysaa laba jeer baad marka saa u qabatid halka uu saa noqdo waxaad kala garanaysaa laba jeer baad saa kala garanaysaa marka saa noqdo marka saa laba jeer u kala garaysid automatical ayuu isku bixinaya wax la yiraahdaa auto function fill baa la yiraahdaa automatic formula fill ay weeyaan oo la bixinayo sidaasoo marka definition-kana aad uga shaqaysiinaysaa aad doonaysid formuladuna saasaad u gelinaysaa b is equal bc divided by c labadan la isku qaybiyo weeyaan b-daas oo qaybiyo c-daas halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa tutorial-keena ku baranayna excel-ka fadlan subscribe ka faa'iido aqoon si aad ula socotid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh